wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu fariin baaqa u diray hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliland iyo waliba qulbajooga reer Soomaaliland oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan beerista dalagga kala duwan ee dalka Soomaaliland waa kan haddaba wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Seed oo halkaasi ka hadlay hay'adaha maxalliga iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee qurbaha jooga inay dhammaantood isla garab taagaan sidii aanu dalkan ugu jeexi lahayn ruud in dadkoogu ay la soo baxaan cunno ku filan taasoo aad ogtihiin adduunka maanta in waddan kastaba runtii u socdo dhinaca wax soo saarka si aad runtii ka wada dheregsan tihiin adduunyada maanta aynu joognay aynu marayno boqolkiiba 20 ayaa biyaha roobka wax ku beerta beeraleyda boqolkiiba 20 ayaa roobka wax ka suga oo u badan wadamada Afrika boqolkiiba 80 waa ama waa wabiyaal ama waa biyaha dhulka laga soo saaro inta badan sidaarteed inagu waxaanu ka bidnahay dadka inta badan ku manaafacadsada roobka marka waxaanu maadaama aynu roobka ku intifaacsano oo aynu roobka wax ka sugno waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland mar labaad iyo saddexaadba in aynu ka faa'iideysano dhibicda roobka oo dhibicda roobka ayna dhulka ku dhicin ee aynu ka faa'iideysano sidii aynu wax ugu soo saar lahayn waxaad ogtihiin oo marka tihiin in sanadkii dhaweyto aanu awood badan saarnay wax soo saarka 3 mashruuc oo wajaala iyo beer iyo xaaxyo oodweyna runtii mashaariicdaasi inta badan sidii aanu rabnay uma ay wada suuragelin sababtoo ah waxaanu ku talagalnay roob ay ahayd roobkuna waa wax marna da'aya marna qaadaya laakiin haddana waxaanu ka helnay calaf xoolaadu aad u badan calafka xooluhuna wuxuu la mid yahay raashinka dadka sababtoo ah xoolaha waa lafdhabarta aynu ku tiirsannahay boqolkiiba 65 xoolaha aynu ku tiirsannahay iyo beero marka sidaa darteed waxaanu awooddeena isku geynaynaa inuu waddankan aynu noqdo shacabweynaha reer Soomaaliland dhinaca beeraha in dalka wax kala soo baxaan waxaad ogtihiin sanadkii dhaweyd khudaarta dalka ka socda boqolkiiba 70 inay khudaartii waddankan daboolnay boqolkiiba 30 kale ee sanadkan inaanu daboolnaanu rabnaa xagga raashinkana saasoo kale rabnaa waddan kasta oo adduunka ka midina wuxuu cunaa wuxuu isagoo la soo baxo sidaa darteed waa inaynu shacabweynaha reer Soomaaliland inagoo warbaahintiina aad nagala qayb qaadataan inay dadku dalkooga wax kala soo baxaan حسين عطية جماعة حسين قافني تيفي عالمي يونيفرسال تيفي بورما